runtii waad ogtihiin Kenya inay soo duushay anigu kuma badinayo mid waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan khilaafaadkooda iyo wixii iyaga isku qabaan inay meel dhigtaan oo gardarada Kenya iyo Ethiopia ay nagu wadaan iyo Uganda iyo Burundi loo midoobo oo la iska dhiciyo meel la iska saaro kadibna wixii wax kala sheeganayo gaalada markaan iska saarno in geed la fariisto la garamo oo la isku garsooro ayaa ku talinayaa insha Allah ta'ala midaas kadib tan dadweynaha markaas saasiraado waxaan ku darayaa waliba wax kasto oo dadku ay maanta naga tabanayaan waxaan leeyahay maanta raalli ahaada oo noo sabra insha Allah naafiya hadii kale oo ay taas noqonaysana waxaan leeyahay maalin dambaan garami doonaa geed baan fariisan doonaa ee gaaladaan isla dafcino oo gaalada aan iska dhicin taas markaan ka gudbo waxaan u mahadcelinayaa mujaahidiinta meel kasta ay joogaan sida u sabreen jazaakumullahu khayr ala sabri wal rimaati wal jihad waxaan ku darayaa oo kale aad aan ugu mahadcelinayaa reer Muqdisho jazaakumullahu khayra shalay waa gurmadeen gaaladii soo duushay ilaahay gacmahooda ku cadaabay waa duleeyeen waxaan leeyahay reer Muqdisho waad mahadsantihiin meesha ka sii wadaya meel ka hore reer baa iyo boqor waxaan leeyahay shalay reer Muqdisho dafciyay idinkuna maalinkiina maqaalaysaan ya reer Muqdisho toddobaatan baqti haday keenan meel aan idinka filay idinku ya كبرنا صومان ترونتي وهم هذين ولا نوان ودعينا يا كثر الله أنصارهم وجزاهم الله خير وحنا لا إلا درك يا محارن الرمود بعد كم نقطتين في شلين وعذرات موجسين جزاكم الله خير سدا مجاهدين دوبر الاستاجة وحنا كلام الله عليه وحنا لا هي قرآن ليرا كينياتيجا نك ليرا وتنبورا كل وركا جوا نسوجاري فرينتي واقبنا إن شاء الله والله فشندو أمامه وحقوق الماء وإنت تدرس إن شاء الله تعالى أيات فريسة بإذن الله